الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الدنيا حلوة خضراء، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة إبليس وإن كانت في النساء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، إلهي بaan ku xamdinaynaa masaajidka jaamica inagu kulmiyey si aan naftaydana aan u baraarujiyo inaka dhexdeedana aan isku baraarujiyo. maxaa yeelay baraarujintu iyo waalada iyo naseexada qofka iimaanka leh ee mu'minka u tartaa. masaajidkana ma camiro oo ma soo galo ilaa qof mu'min oo iimaanna mooyaane. sidaad masaajidka u soo camirteen waxay caddaynaysaa inaad dad khayr jecel oo khayr doonaya oo khayr badan inaad tihiin ee marakata. adduunyadana ilaahay waxa uu noo keenay keliya inaan khayr ka qaado. zamankuna runtii waa zaman adag weeyaan oo khayrkuna sii yaraanayo, sharkuna uu sii badanayo. macnaha dadka khayrka jecel iyo dadka sharka jecel, dadka sharka jecel baa ka badan dadka khayrka jecel maanta. niman dhalinyaro ah ayaa dabatooda korkaska alhidaaya ugu yimaadeen. su-aal baan weydiiyey, waxaan ku idhi zamankan aad kusoo dhex dhacdeen ma zaman fiican oo khayr badan oo wanaagsan baa mise waa zaman adag? jawaab keliya markiiba soo tuureen. waxay idhahdeen zaman dhib badan oo fidnad badan oo fasaad badan oo fujuur badan oo macsiyadii ay badatay oo bini aadamkiisu uu ku fasaada ay dhib yar tahay wayaan bay idhahdeen zamankan. markaasaan ku idhi dayib, kuwa innaka inaga dambeeyo ee 30 sano kadib matalan iman doona adduunka, ayaguna maxay la kulmi doonaan baad u malaynaysaan? makuuli maxay la kulmi doonaan? haddii ininkii oo 19 jir ah, 20 jir ah, 15 jir ah aad qiraysaan oo leedihiin zaman dhib badan baan ku soo beeganay, zaman khayrkii yaraadeen, dadka khayrka wadayna ay sii yaraanayaan, sharkii uu batay, aalaadkii sharka bini aadamka loo soo dhex marinayana ay bateen, oo si dhib yar qof isagu aqalkiisa joogo uu ku fasaadi karo. haddii ininkii aad qiraysaan oo leedihiin zamankan waa zaman shar badan oo fisqi badan oo fujuur badan oo macaasi badan oo asbaabta bini aadamku ay ku lumayaana ay badatay, haddaad qiraysaan adiga ilmahaaga maalan 30 sano kadib zamanka soo socday ilmahaagu la kulmi doono siduu noqon doonaa? markaasay idhahdeen waxaan u malaynaynaa inuu zamanku sidanu ka sii dari doono. anas ibni malik radi allahu canhu ayaa dadkii muslimiintu waxay u sheegeen xajaaj ibni yuusuf dhibaatada ay kala kulmaan. markaasuu ku yidhi iska sabra buu yidhi. nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa ka maqlay inuu yidhi zaman ma yimaado ilaa zamanka ka dambeeya ka shar badan.
أركان النبي محمد عليه الصلاة والسلام محمد ما كان مغلب ولا أركاس صلاة دائرة وهو زيادة marka zamanku maaha zamanka waxa sharka badan leh ee waa dadka zamanka jooga ama ayaa khayrkoodu badnaanaya ama sharkoodu uu badanaya marka zamanka yaa waxba ceebaynin zamanku waa zaman ilaahay baa caza wajalla haya oo habeenka iyo maalinta ilaahay baa badbadilaya waxba ina aadamo zamanka eedaynin waa bani aadanka ayaa xumaanaya ka dhiganta waayo zamanka bini aadanka ayaa loo nisbaynayaa sidii nabigeenu uu lahaa khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum qurunta qarniga aan jooga ugu khayr badan buu nebigu yidhi haddana qarniga ku sii xiga uma haddana qarniga saddexaad ee qarniga labaad ee ku sii xiga quruntu maaha waxa khayrka badan leh laakiin dadka jooga baa qarniga loo nisbaynaya zamankaa shar badan macnaheedu waxa weeyaan dadka zamankaa jooga ayaa shar badan zamanku waa zaman khayr badan macnaheedu waxa weeyaan dadka zamankan jooga ayaa khayr badan markaasaan ku idhi maadaama zamankan aad ku sheegaysaan zaman adag inuu yahay ood la kulanteen 30 sano kadibna maxaad u malaynaysaan soo kasii dari maayo zamanku sidan haa ayib sharka adduunyada sharku ma uu iska imanaya mise waa la beeraya oo dad baa beeraya ilaa adduunyadan ilaahay caza wajalla waxa uu ka dhigay maydaan xaq iyo baatilku mar walba ay ku looltamaan sida garoonka kubadaha banooniga lagu ciyaaro laba ekib baa mar walba ciyaaraya laba guruub baa mar walba iska soo horjeedo ciyaaraya adduunyadani waa garoon ilaahayna wuxuu dhigay xaq iyo baatil xaqa iyo baatilka labada qolo kolba qoladii dadaalkeega uu sareeyo unba adduunyada maaragtaan ay saameyn oo dadka bini aadankana saameyn dadka xaqa wada ee xaqa danaynaya ee xaqa jecel ee xaqa baranaya ee xaqa raacaya ee xaqa ku dhaqmaya hadday bataan adduunyada xaq baa daahiraya adduunyada khayrka ayaa kor maraya sharka oo waa macnuhu waa maxay dadka khayrka jecel ee khayrka badan ayaa biiraya oo tiradooda ayaa kafada miisaanka taasaa cuslaanaysa dadkii sharka wadayna markaa way yaraanayaan baatilka dadka ka shaqaynaya iyo junuudiisu haddii ay naga dadaal bataan innaka sida maantaba laynooga dadaal batay baatilka adduunyada ku fidaaya dadka baatilka noloshooda galaya qalbiga baatilka ka galaya baatilka qalbigooda galaya maskaxdooda baatilka ayaa degaya aqaladoodana baatilka ayaa galaya baatilka ayaa wada baatilka markaa ibliis iyo shayaadiintiisa iyo gaalada iyo munaafiqiinta xaqana ayaa wada xaqa ilaahay baa wada oo ambiyada ilaahay xaqa u soo dhiibay haddana culamadu waa warasatu lambiyaa suma dadka muslimiinta ee ducada ee dadka khayrka baraya khayrka u sheegaya waxay ka shaqaynayaan siduu xaqu mar walba u sarrayn lahaa waana sunnat allahi fi lkown labada qolo kolba qolada dadaalkeegu uu sarreeyo ayaa waxay aaminsan yihiin ay doonayaan ayaa adduunka ku fidayay ugu khilaafadii mucaawiya radia allahu canhu wa ardaah mucaawiya magaalada dimashq la yidhaha waxaa waali ka ahaa abu dardaa warqad u soo qoro wuxuu ku yidhi abu dardaayow magaalada aad ku nooshaheed waaliga aad amiirka aad ka tahay ee dimashq dadka maaragtaan ee fusaaqda ee bilaa salaada ee bilaa cibaadada ee macsiyadda maaragtaan ku dhiiran ee khayrkoodu uu yar yahay qaa'imada warqadda igu soo qoro ikeen buu ka yidhi magaalada dimashq maalinka uu mucaawiya talada ummadda u hayay ee abu dardaana uu ka ahaa amiirka uu ka ahaa waxaa la yidhi dadka ku nool cadada sukaan fii madiinati dimashq waxaa lagu qiyaasaa 3 milyan oo qof baa ku noolay baa layidhi magaalada 3 milyan oo qof ay ku nooshahay ayaa dadka fusaaqdu ay yihiin dad fara ku tirisoo la tirin karo maanta aniga iyo adiga xaafadda aan degannahay haddii lagaa yidhaahdo inta tukata iyo inta aanan tukan labadaa qaybood inaad qaa'imad ka soo samaysa midee kuu fudud jawaabtu waa maxay maxaa odhanaysaa inta aanan ka tukan xaafaddaa degan tahay iyo inta tukata inta dhallinyarta masaajidda ku xidhan ee diinta jecel ee diinta danaynaysa
أنت المساجد أن كحنين بلايا بوك يا بلايا توب يا بلايا مارك تاني بلايا توب عدنا تيك توك أرد بلايا توب بلايا بوك يا بلايا توب صدق على بلايا الغفرة صدق على بلايا لبدا قيبود هدي لغا الى عافدا كل شهر دل يرada iyo dadka masaajidka ku xidhan iyo dadka miskiinka khayrka aan ku xidhnayn inaad soo qorto midkee ku fudud hadii lagu yiraahdo maxaa ku fudud inta khayrka samaysaa fudud inta tukata fudud in la soo qoro muawiya wuxuu ka dalbayaa abu darda damashq عدد كمان تانا في الصغرى ذاتك بلا عبادة أما معاصدة بضل فستق اللغو يقانو قائمة أبو صبر بوكي أبو درداوية الله رأيك المغضي ما لي ولفصاق أهل دمشق أنا هي فسقات دمشق كنا محائل مريم أنا هالكين كده حاجين كنا ما نيجا أقامنا إنك يسيبها مغلاية وحوارك أبيه أريد إنك علوس لهاي أمير المؤمنين تنور بكسوغيا يركي ودل أبو الدرداء يا يلي أبو وحبها دبسبو يلي أنا شغدا قبرك صوبر يي برغاس أبو أديغا ياخذ بره في الصاغ دمشق كله مربع ذات روانا قانا كم باته قائمه دبق على صوبر بكي فعلا ما نقرين بالي لماذا صحابه عرفي لو يقال ددك عيبتودا inay sheegaan ma ahayn waxa curfigoodu wuxuu ahaa ummadda inay asturaan waxaan ka wadaa xaqu markuu dadkiisu u dhaqaaqaan ee dadkiisu ka fikiraan ee dadkiisu ay bartaan ee dadkiisu ay jeclaadaan ee dadkiisu ay ka shaqeeyaan dadka khayrka jecel baa kormaraya dadka sharka wadana farakotiris baa noqonaya hadda iminka waa laynaga badan yahay soo maa laga badan yahay hal lagaaga batay dacwadii baadilkaa sarreysa ka dhigan tahay markaas dacwadii xaqa way seexatay maanta lidalika nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam xaqa waxa uu ka bilaabay yeedhis buu ka bilaabay inuu ummadda u yeedho xaqa waxa uu ka bilaabay card dadka inuu xaqa u bandhigo xaqa waxa uu ka bilaabay ummadda xaqa inuu baro حق وحو كبلا من اللي نجي مسلمة إنه هو استعمال حق إنه كشقي مركز حق المجتمع يوم بوغالي سندقيا مدة يروكوبا مدينة المنورة النبي محمد آنن تقل أي أقل والمدينة الإسلام هو كشيء أيضا المساجد اللي قدسين مدرسنا أنا اللي قدسين ملعامة قرآن الله برتنا أنا اللي قدسين أي حق قولي والبقى لمقالة المدينة أيضا نبي يقول صلى الله عليه وسلم أيانا سلاموها أنصار مركز إسلامين إدتكو هنا إلهي أدياري حق إني قاتل وكوي نبي انتوي مادين كويري لا تقرين مدينة نبي الله إني إسلامان بين ربان دين تيبي وصول جيستين هذا وحارنا عدنا عد أنك نقدرته ودنا قفقاس ودين الإسلام كبرات قاس مركز الله بقدر المصعب بن عمر بقدر المقري عندنا يرى وانت مكان جوجينا رجل النبي قال جوجي دينت النبي كبرنا النبي عليه الصلاه والسلام بحلقه كربي من كمدا اي نبي مصعب اللي يقدر مصعب قاتل وكيل مصعب بن ايوها مصعب انتم الاسلام كهر نين كقروح بدن او كبر قروح بدن او كحر بدن لغلبه مكا كوبو سنولين بليدي بل نانيستي سواء الرجل فتى قريش ويل كان يرد قريش الايله هذا لوغو مغعد رجل يعني waxa laga soo qaaday quraysh inay wiil kale aysan lahayn illa mus'ab ibn umar mooyaan waayo hooyo xoolala ayaa dhashay hooyo lacagley ayaa dhashay dana barka uu ku xidha magaalada makka shaam baa looga keenayay kabaha uu ku xidho ku labisto shaam baa looga keenayay oo islaamay markaas hooyadii ka hadhin weeyay tiri بينا عوني ماي بانا بينا عبد ماي بانا عوني ماي هبنا استاجي ماي إلى دينتا أين حمل التصل نقطين مويان مرقا بر هو يا معاني
orodoo harkaagana iska gal oo harka ku noqo biyahaagana iska cabo baadkaagana iska cun 100 nafood haddaad yeelato midda mar halka ay kaaga baxdo diinta islaamka tuwaan ka soo noqonaya maaha nabiga mabda islaamnimadu week waxay ka ahayd iimaan iyo sidq iyo caqiiday ka ahayd dabeesho kolba dhinac uma qaadayniyo mar hadday iimaanku qalbigooga uu galo ilaahay baa u markhaati kacoo yidhi alzamahum kalimata ataqwa wa kaanuu axaqa biha wa ahlaha ilaahay baa kelmadda qalbigooda ku sugay maxaa qalbigooga maxaa kelmadda tawxiidka loogu sugay laanna waxa loogu sugay baa ilaahay yidhi kelmaddaas xaq bay u yeesheen ahelkeedana way haayeen ahlu laa ilaaha ila allah innakan allah naga dhiganayo kelmaddaas sidee ehelkeega u haayeen iyagu waxay amartay la yimaadeen waxay ka reebtayna way ka reebtooma wixii macruufee shareecaddu ay fartayna way la yimaadeen wixii munkaree shareecaddu ay ka reebtayna way ka joogsadeen iyagu shareecaddu waa nolol weeyaan maaha iska nolow maaha waa nolol lagu leeyahay sida u nolow salluu kamaa ra'aytumuunii usallii salaada keliya maaha bay culimmadu leeyihiin waa nolosha oo dhan weeyaan man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa waa maxay haddaad nolosha nebi maxamed qaadata jannaad gashay haddii nolosha nebi maxamed aad qaado weyda adaa iska diida jannadii bay ka dhigan tahay marka salaadoo keliya maaha waxay nebiga kaga daydeen noloshoo dhan bay nebiga kaga daydeen waayo kelmadda ehelkeyga may noqon waxay ku noqdeen kelmadda ehelkeyga waa maxay wixii kelmaddaasi fartay oo dhan bay la yimaadeen waxay kelmaddu ka reebteen oo ka hadhaniyo o islaam madiina nebigu u diray calayhi salaatu wasalaam sabab wuxuu u noqday magaalada madiina inuu aqalaqaliyo qoys uu qur-aanka baro dadka iyadoonan masaajidna laga dhisin macaahidii madaarisna magaalada madiina ay lahayn ayaa diinta iyaku saxaabadu maqsad hadaf bay u arkeen hadaf nololeedkooda leanna si dhibir bay diinta ummadda u gaadhsiinayeen markii madiine la soo hijrooday ee nebigu madiine u yimid calayhi salaatu wasalaam ayaa maalin maalmaha ka mid a wuxuu nebigu arkay muscab bin cumayr oo maaragtaanay maro intay ka googo'day daldallaacday maro kale ku karkaray weliba badhankii intuu ka go-ayna qodax uga dhig maaragtaanay badhan markaabuu nebigu iska dhilmeeyey calayhi salaatu wasalaam marka cali bin abi aalib oo nabiga ag fadhiyay sal alla alay wasalam ayaa yidhi yaa rasuul allah maxaad aragto wuxuu yihi muscab bin cumayr maanad arkayn buu ku yidhi undur nolosha ku nool yahay maanad arkayn dhar la-aan nafaqa la-aan dhar la-aan dharkii intuu ku dul googo-ay ayuu maradii maro kale ku rakacday badhan ma leh waxa uu badhan uga dhigay maaragtane qodax buu badhan uga dhigay markaabuu nabigu uri waxaan xasuustay intuusan islaamin noloshii uu ku noolaa tanacumkii dharkii uu qaadan jiray raaxadii uu ku jiray baan xasuustay noloshaana iyo nolosha maanta uu ku nool yahay baan eegay noloshii uu ka yimiday iyo noloshan uu yimiday baa isku ekayn laakiin noloshan hadda uu ku jira muscab ilaahay rasuulkiisa raalli kaga abu rasuulku وقد مات قوم وما ماتت فضائلهم وقد عاش قوم وهم في الناس أموات وقد مات قوم وما ماتت فضائلهم ضد وين بنتين الدنيا وكتجين لكن سيردي وانا سنيدي كتجين العالم دويتها وقرنتها رقم كوجي باقرن هذا الذي دي باقرن سيرة دي باقرن سلوك دي باقرن ضدنا ما أنت وكل اللوليين waxay qiimo leeyihiin lama jirto way nool yihiin iska nool dhar fiican buu sitaa aqal fiican buu degan yahay gaari fiican buu wataa bakhaaro waaweyn buu leeyahay adduunyo badan buu kala rogaayo kala dedejiyaa laakiin laysa lahu wasn ummadda wuxuu qiimo ugu fadhiyaa ma jirto laana ashyaada maaddada la yidhaahdo ee qofku uu haysta maaha waxa qofka ilaahay ku qiimeynayo ama bini aadamka agtooda ay ku qiimeynayaan bini aadamka waxa ilaahay ku qiimeynaya waa taacadiisa ilaahay taacadiisa muscab uu ka tegay adduunka laakiin sumcadda wanaagsan uu kaga tegay taariikhda adduunyada kaga tegay
عبد الرحمن بن عوف وها صحابي الله رضي كان نقضي isagoo oo sooman ayaa loogu yeeray cunto leeyahay kalena la cuntay markaas cuntadii markuu arkay sida cuntada meesha u taalo waa zamankii dambe futuuxaadka iyagu ay heleen ma cunina u lilmayo lilma ka daadatay ibn Awf maxaa ku helay lagu yiri Abd Rahmaan wuxuu wallahi waxaan xasuustay buu yiri walaalkay Mus'ab ibn Umayr oo ila khayr badan ayaa la dilo shahiiday mara kafaran uga dhigna ayaa weynay buu yiri ridaa goob kale gundata kaliya goob kaliya ayuu sitay buu yiri xagga sare markaa ka saarana lugihiisa ayaa qaratay ayaa muuqanayay xagga mijaha markaa ka saarana madaxa ayaa muuqanayay buu yiri markii damar geedka ifsirka leeyda ayaa xagga lugaha ka saaro kafan uga dhignay dhalinyaradu raadka fiican bay ummadda uga tageen taariikh dhaxal gal ah diin hadda doontana iyaga kaga dayo asxaabu muhammad man kana mustannan falyastanni biman qad mat ulaika asxaabu muhammad kanu khayra hadhihi al-ummah abarraha quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan qawmun ikhtarahum Allah لصحبة نبيه ولنقل دينه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيا يلي وارنك عد كدينا يوم أصحاب محمد كدينا ابن مسعود هذا الكأيو كله يهي تابعين تيبو كله يهي هذا عد كدينا إنسان معناها أنك من الله هم كدينا لي وعد كدينا تامد أبو بكر يا عمر رجع أنت كدينا أصحاب محمد كدينا كانوا خير هذه الأمة أمة النبي محمد هو خير بدن بيهايين وقو قلب بار السم بيهايين بار قلوب توضع جلع سنة آية القرآن هذا أخيان ويقول يجري وعد الدير إنه جيدين وما يقول جيدين هل آية هذه بشهد الله أخرين قلوب توضع أيام بدل بيس هل آية صلاة العشاء كملها من النبي كم مغلان صلى الله عليه وسلم وهو يجري والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا صباح فقضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خليل حديث البخاري ومسلم تعالى كلمة دام النبي وصحابته سكويري وحانوا أن أوجهي غيبك وحان كأوجهي وحصوص على أن أوجهي هذا نقول وحكوا قال لهيدين إن ينبغ قصر لهيدين وإنت بدن ودوين لهيدين هذا الجامع الصحابة أي مغلين وحديث والجنة دائرة إنت على مرة أنتم مرحبوها وأنتم هوستك ودوين قلوب تولا جلع سنة قلوب بارية حق مركا لشيء مركا وقادن جري وقادن يجي دم لبدل ما هين يكا ومدى واحد بدلها أنت إنك اللي يرد أنه في رصدا يكو دل إسلام الجوغا ومساجد لنا عوام بأفرت الله وجرته ومساجد يوم دروسه كسعته ودنا عوام بدرسي قرآن وكفرا يهي ومع علماء نمروا ما تأكد يسو ودول قالنا عقاها عانن دقيل يا اللي بدلين سلام بدل يا والله بدل لن يرى ولا الحيرة ما علينا أيوم الجيل شيخ حسين لن يرى يسوي كادين فيري وعارفون مقالة الجوغان الله ما يعبوا وايو كمية الجوغان وحكي جيل جريه وحانا كدين عحيرا ما أقول معك كلا يابو جيل جريه اللي بعدين عحيرت وماله الصعب ماله كيدي عدو كدين يواريو أنا كلا قرني داد مدحا كسعودة هدي أدقي مجاها كسعودة المجاها كسعودة يسي انتو تسكت يسي داد مدحا كسعودة داد رأوا كدين يوارا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط المستقيم إلهي با إنو عبدين يوالك كمدى حيث وكسعودة يا كيلي لمدى الوضع كسعودة كيف أصدقكم من الأسعودة وإلهي لديه مسلم مؤمن حدو قفك مسلم مؤمن دبا وياهي إنه يسوي أمده وصاميه وحبدله وياهي قفك مسلم كمؤمن كلا ما بدله هذا درك مجتمع اللي بدليا وكم بقولي متماضية وقولي بلايا وحوص وشطب الراعي هذا درته مجتمع سؤولي إيمان وقلبه وقلبه قلبه كان انتهي ولدينته عقيدة كما وحكا كتهي مرة تاني دينته
sheegashay هاي sheegasho boqolkii boqol Soomaalidu waa islaam juqraafiga boqolkii boqol waa islaam laakiin ala tabiica soo noqo boqolkii boqol salaada ma tukana عقد نظام الجغرافي لم يبقى مسلمين لكن حقيقة سو دادا بقول كي سيدتنا ما سغاشن waxa laga yaabaa inay diinta cilaaqo la lahayn qaarkeena diinta dhan way ku waswasan yihiin dadaraada maanta qof muslima zamankan maanta waa zamankii diinteena ha qaadano iyada shariicada noogu filan iyada ha ku dhaqanno iyada ha ku kala baxno maynu kulay caalamka ka harayna caalamkaad ka haray أصحاب النبي محمد لما بدل إليك واحد بدلها لماذا قلوب تونا نغطى قلوب جلحسن إيمانك قلبي وغفر السيء إلهي معرفة الإسلام الدنيا الناس كم الدالين يبدأ هذا هلانا عمتدى ويعونيين هذا ويانا ويسكى سعوديين بس هذا النبي صلى الله عليه وسلم عايش مين دي وحنا عمرنا كما يلا ما يلا اسكدا وصومنا هيك حفصة وحنا العلماء يلان يا رسول الله ما يحمى يلان اسكدا وما اسكا صومنا هيك على شيء يجرك ما يبسينين بل قلوبته يبسين قلوبته روحنا يبسين marka dhalinyaro waxay haayeen aan la bedelay ayagu wax bedelay mucaad ibn yaman diray yaman rabbu bedelay mucaad Abdullah ibn Mas'ud Allah raali ka noqday isagoo ardaydi dars siinaya ayuu yiri inna mucaad ibn jabal kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun min al-mushrikeen markaas Allah yaar nin ardaygiisi haba ku yiri ya aba abdurrahman wa qalb saad wa khari samaha markaas waa ku celinay iga dhageyso إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين برقاس يا أبا عبد الرحمن والقلدتين برقاس البلاد آخر آيات هذا وصديه برقاس إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين عبد الله بن مسعود بهذا الحقيقة تويري أتدري ما معنى الأمة قرآن كفهم جيس الدقيق الربع مبارك ما معنى الأمة؟ أمة معنى مطغى أبو كيف إن إبراهيم أمة بوهاي وما معنى القانت؟ قانت هو قفك إلهي أدعسن إمر رب إلهي تعدي سوتاً ما معنى الأمة؟ أمة معنى مطغى أنك أمة الذي يعلم الناس الخير وأنك بدك القرآن برايا وأنك بدك الدين برايا وأنك أمة خير كأبويا رايا وأنك أمة مسكين كأبويا رايا وأنك أمة دين الإسلام كأبويا رايا كاسا أمدا نبي إبراهيم كلدي أمدها وكلدي بعد بين الله صار زمن كيسي معاذ بن جبل كلدي أمدها كلدي نبي يقول برودي تبركوا يريدون بركوا نبي معاذ يمر درين داد إنسان علماء الدين اجتمع وطنا وتلك كل كلا عقيديه كلا أركتيه كلا عقل أيه كلا الدين أيه أيضا المعاد دري لأنه معاد صوت بلا وضع فينا إنك أنا ما أنت اللي يرد النساء صلى الله عليه وسلم سيدا بنوني قال له عيارة لما عيارة قم 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 بنوني ما ترى على باشا كبضة يا يقول لهم الله كله نبى سوق هذا وحيري ورت عديقة حاب بالدمر كله كيف أركب وقف الله سوسانا حتى مرمر أنك مالها مركب مرنا نقص أرض ويرلا مركز ومثال يعني وعيت لأنك هواء يقلب على هواء هذا أدقون هواء هذا رعب وهو كان محسنته كل ما بدك الله بدي بيكون كل شيء ذاك أما هنوك الراعي وحن نغنيا قف إلهي ما نعيد كلام راني قليل نغنيا هذا مسلمين تمرك هواء ذي الراعي هواء اتباع الهوى غالب إننا نغضي معنتا وعاد على قالت هي المنافقين ونسلك وعسلك وعسلك وبدأ نروح يا إلا إن وحي اللي نوش يا جماعة أنا قاعد بقول آمنه
soo socda idaacadda laga odhan oo la sadaqi dadkoo dhan baa rumaysan hay-adda culimada adduunka hadasho abaara culus baa Soomaaliya ku soo foolay hal la gargaaro dadku dhagaha taagayaan abaara soo socda ayaa yidhi hay-adda caafimaadka adduunka hadasho xanuun caalami adduunku dhagaaraya soo socda ayaa yidhi تصدق واحد ما سر من مليون مرة ما نقول واحد بالله مسلم عليه وفق مسلك وحي هديني هذا أنا قلبي جاي هو بوحة مسكح ذي وين بوحة محاك كبوحة إلهي كلام قصي كلام بني محمد كبوحة واحد لا كلام على وركلام الله عنك ورك إلهي ورك النبي محمد ما قال صلى الله عليه وسلم بس كهذا هاي سنة وانهروا مرينا وقولي سنينا ونيدانينا ورشع البيض وإنه معنا آخرة وإنه معنا لذلك الرقم ما لنا هنا شرع عبادة كلمة نرشع لنا وبصامنا ولا لنا هيدا قرآن فكوشة نبي محمد وكوع النبي صلى الله عليه وسلم نرشع دي قورتها دي قيرتها دي فرحتها دي روفتها هذا حضرتها هذا جرعتها هذا مسؤولية أيتها مسؤولية أمة بلغوا ديني سادوا مدة أمة مليس القرآن كوشة وسنة النبي كوشة جرع صدينا نقطان رتا جرع سجسوا بغاجنيس القرآن كسنة النبي كوشة وعبرت هنا البوسة جور جيدا من الإسلام كوكب جورك هذا الذي عليه سادوا رأيسي هذا البوسة سادوا وقال جليسي ويحاول بين القرآن حول راعي من واقص وضدك لو بيننا من هذه الحياة نرشع من سادوا ولا لهي ولا بينها وعدي رجاس إلهي لليه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إلهي ذا كله وهكذا جدك يتوصنا قلت إلهي أحكامتي ولا إنه عدي أيها طريق يتوصنا واقص وطريق توصل طريق توصل ويا سرع والضوء يرير بأنت أبتي ستاقنا يكوعين ووضع بحلان أكون تكمل طريقة مستقيم كسرع لبدا من عسكه دمير كان مدالة نحن يدبيها الله قدام يلا بدال رحنا ورحقا رحنا لبدا محل ورحنا بشيء مسمى بقى ركبنا دميرها بقشة إلى دميرها مدالة في نحن ضل بقشة من يدبيها لكن مدالة الله سود دليل تومبري لبدا ورحنا لبدا محل ورحنا حقا واحد قصص على حقوها يقودني حقا واحد قصص على هيك إنك أنت والله قحلي لبدا استحلوا حقا هنا هيك نبي محمد عليه الصلاة والسلام لبدا يكون قحلي أيجري تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي بالنبي يقول لبدا نهدينك جتك الأمة الدينية حدي لبدا أنا عبد لبدا سوق بستانا أنا قد بضلوا من إنسان بالنبي يقول لي هاي طريقة صحبة قصة عدو لكن طريقة عدو بكوفر لي الشن عدو هربها كفر لي أقول إلى أن نرتكب دي المؤمن بين خمسة أعداء بين كافر يقاتله ومنافق يؤذيه وشيطان يغويه ودنيا تجتذبه ومؤمن يحسبه شن عدو أي قف مؤمن كهربها كتابا قال ربك الله يا منافق دباتين يا شيطان كباديين يا الدنيا خير كان حساريسا كضفيس الدين نجي فعلان باير شغير الله يغفريو لا اركب ما يو افر تاب لا يو بركه بافتح هذا وعلى شيء ومؤمن يحسده مؤمن كحاسده الى اجرا يوم وحتى خير كدحديده امتحانك وصوبة سهورا وين المر والبكو عبد إلهي عفسي قد إلى لساء قد نفتاد إلى لساء وشداك إسكا إلى لساء وأدوية إسكا إلى لساء وما كان مرافقين إسكا إلى لساء ومؤمنك كحاسدين أن إسكا إلى لساء قد نبطاقف مرة كان حقه عليه كصلي رسول هذا يكتن حقا صلى الله عليه
يا وفق اللحاد كلام مركي الله أركم حديثها الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به صومين إلى آخر الحديث. شنتا عدو ما قفك مؤمنك على راكتها شنتا عدو قفك على راكتها يجر تكور مركز الزمن كان رمتي وزمن أدق وياه حكى قبل بالي أنه محيط ما تدى تاقن إن النبوة صاحب الحق حق ولو حقك الشقيق حق وضعي ودين تاني الإسلام حق برا دين تانا برا دين تانا ضدك بر وصد على خاص الوضع صحابة النبي أي كل قانين إيه كلا ريدين إنكم أنت عقل الرجل مؤمن تصدق عهده نبينا عليه الصلاة والسلام وقوها عالما بدينه دين تسأقوم لها أو يقع انت مبرنا يغفق مؤمن بزمك النبي عاملا بدينه دين تنبرتنا وكو عمل فلي داعيا إلى دينه دين تسنة وفكشق يوم مضك الأبوية ربها أصدح صفة ويوضع سعودة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آيات ناسا شيء إيسا أمي بوها نبينا عليه الصلاة والسلام أميين والله قصوا دحساري مرقاسا إلى هاي الشيء ودي فضل النبي قليه دوام معي داتكو آيات كلاه دشودكو أخرين يا داتكو دشودو آيات كلاه كدو أخرين يا قرآنك كسو دقيا دابا كانوا وشاقا يا قرآنك كوانو وتقيا قال هذا القرآن كدوشودا كو أخرنا يا منافقين القرآن كدوشودا كو أخرنا يا مؤمنين تيسر مؤمنين تدينان كقبتا أي دوشودا إيمان يوم القرآن كو أخرنا يا مركز إلى هاي ويزكيهم لأن مركز التربية دينا يا وهو التربية دينا ونحي وأذكارك وقرآنك وعباداتك وصلاتك وصومك وحجك وعمرك واعتكافك وحلقات العلم. نعم كانوا كتربية دينا يا ويعلمهم الكتاب والحكمة لأن مركز علمك بريا سنة أيوب بريا وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والأمة ضلال مسلمي أي أمر النبي محمد إلى هاي كسر دحساري إلى هاي كدك قوة بن هذا هو خير بضم الله كدك أمة خير كوب يرى أما خير آدم الحين أي النبي محمد إلى هاي كسر دحساري لأن مركز النبي هم الضخير كلا الأحمر كانوا أتقى ذا الجوشة اللي ونجري ورياض الضبابية أي النبي قوي من يسوي مركز ولي الإسلامي مركز يا محمد فرس يبو مركز أوكي فرس كيلا هذا كوكي قابا أو كرسو حتى ترى دجالنا هو بشيء مركز النبي يقولي مايا قادم مايا بلاش قادم مايا ذروع لي بريه دجالك iyo gaashaanadii aan ka soo qaatay dagaalkii badar gaalada ayaan hayaalaha ku bedelo markaa buu ku yiri anigu maaragtaan faraskayga bara ku bedeleen maaye waa ku hibooday iska qaado markaa buu nabi nin mushriga oo gaala anu hadii kama qaatan buu keenay markaa buu iska qaatay faraskiisi iska qaatay dadna markaa buu nabi sallallahu alayhi wasallam gacanta intuu qabtay buu ku yiri dal jawshano bakulata haynin inaad soo islaami ورجع وجوه دين الإسلام كات كم النقل مركز أقول ما إسلام يبوكيه محل الإسلام ويدي بوكيه دين الإسلام هنا تصور بشر وبدك وجوه الإسلام لماذا أصهر قالين أتكلم النقطة محل كل دين شيء وحول واحد أركا يا تركا أو قريشة أو أتكبلتي ويكب بينيين ويكب دجالمان مقالة المكة كبلتين ويكاسو صارين halkaad isla gaadhaan ma arki doonaa buu ka yidhi laakiin hadda anu ku raaci maayo markaanuu nabigu ku yidhi dagaalkii badar saan u nagday miyaanad ka warqabin markaasuu waan maqlay buu yidhi inaad dagaalkii badar kaga soo guulaysateen laakiin maadaama magaaladaadii makeed ku dhalatay weli aanad ku noqon karaynin oo dhowmashiya cabsi aad kaga soo baxday oo qurayshada maka ay ka talinayso haddii magaaladaa maka quraysh aad ka qabsato عالم كي إسلام كنا أتكترتين عمر نبي صلى الله عليه وسلم
إن تغلب على الكعبة وتقطنها بكي حدي مقالة مكة أب قريش أب كقبو ليستي وتكبر ستي وعلى كسلام كمقالة مكة أتكتاكتو أول مقالة محمد مقالة مكوكة بصدي وأصوى إسلام مركا أصوى إسلام بكي مركا النبي بكي إن عشت لعلك ترى ذلك بكي حدي نرش كل الديراتو وهذاك الدون تابو لتانا صوب شرط جاي ومحرنها وهذاك الدون تابو النبي بكي هذا نرش كل الديراتو وسيدست مركا النبي بكي يا بلال وريكا بورصة ديالك كيش كيرو ستكسو قالوا سمرت عجوده اللي قالوا قد بوحي الصحي وقد يقول الفلوس النبي يقول لك الدعوه سيئ دعوه هذا لما هولبا انتم الله الله هذا النبي يقول لك اخلاق وتصي شو تصي اخلاق وناكسه دقه وناكسه دقه وناكسه وقد لو سو جيتا بركابو بلال كدبا كيش كان سيده يدي هاك دغ امر النبي سيئ يدي وكسو قادو تمرت عجوده قيمها بدل المدينه المنوره لغا كينو ايو uga buuxiyay nabi maxamed baa igu yiri zaad uga dhigay waa saayda adiga dariiqa ku sii marbuukay markaa ninka qosay uu sii jeestay markaa nabi yiri bilaalow ninkaas mawjada reer bani aamir waa rag ugu khayr badan ku jira abdo rag ugu karti badan ugu raganimo fiican taasna waa amaan oo socda ninkii dhulkiisii buu qabtay إذا لعدي مدينة كتما دم كتما دور استا ما فعل الرجل أو ما فعل الناس ذاتكي محمد محيك الله فلا يملي شيئا مرقى صوركم الرسالة إلا طبعا بدك اللي كما تقنانه ميغا مرقى الجوغان وفق مقالة كيما دواء الله ورسالة والحيدة لا مقالة محال لها محال مصوكر دي محال اللي بني محال لغا شيئا لها يقولتها مالك مالما كان مرقى السفر ما كيمي دي مقالة مكة مرقى سوري ما فعل الناس لمن في قريشين محمد محيك الله فلا مرقى لقد غلب محمد على الكعبة وقطرها محمد مقالة مكة قرصري وقريش كبدو ليستي إساقنا مقالة مكة مانتا يسوق قتلين إيبي مرقى سويل هابلتني أمي ويدي قبلمتي ويدي هذا مالك إسك إسلامي لها ونبي إسلامي لها والحيرة ويديسن لها حيرة ومدائن وعيكوت الله عراق سل كذا نبع حاجة فارس يقول حيسا مركا ومن قصور قلعتها بقرة وبقلعة كم سنجريبا لي مقالنا حدي عن قرنا هايتون مالك دينير محمد الرعون إسلامه مقالنا حيرا لغا عليه المسلم وريجي وأمير أنيقا إيغندق وإيغندق لها النبي عليه الصلاة والسلام بلغ النبي محمد وقلنا بحسن يا يوم هذا النبي محمد بلغ بلغ كيس أوفليا وحاول النبي الشيخ والله أركايه من مالك يسكر عادي في بداية الأمر أي النبي صحابة نساء بالمثل كلها وردينك الإسلام هذا ما أنت غريب أركيسان وقفك مسلم كإسلامنا للدلي سنيو ولا دباتينيو ولا عذابينيو وأفضل مقامنايو ولا الدلايو هذا أركيسان زمن باصوص عدد النبي قويري أي عزب الإسلام كله وريق دونه وإنه لكتاب عزيز إلهي بارك كتاب هو كتاب عزيزة وشرف يكرامنا وإياه عندي دين الإسلام قالت إلهي وعزيز غريب هذا ما ده دينته غريب تعرف النبي بكون جري زمن بعصاص عدد النبي بكون ضربة دينته كم حدود وسنة الدعوة هذه ذاتك مسلمينته أي دينة إلهي قاتان كشغايا وحق أي برتان وحق أي فديان وحق أي كبرمان وحق أي كبرتان نرشد حق قصة الأيام حق يسمى إلهي بالظاهرين المركز أنك أدقي أنك دين وحقا كريمينه لكن مركز دينة علاقة الله يلانه أدقي أي دينة وحكادقي أهو شنبت هدهد أيها قرآن الله مشاهد حال مشاهد دينة علاقة الله يشاهد أيها قرآن الله مشاهد بحا قرآن الله مشاهد بل المؤمنون علاقة الله يشاهد قرآن الله مشاهد بحا قرآن الله مشاهد قوم جاي جسد جاي له مساحيس الفرس هدهد سليمان في عهد جيسي نبي سليمان زمن جيسي أي أمتنا وهو أركي
boqoradii iyadii boqoradii waddanka haysatay iyo kiiba ilaahay leelkii caabudeen acdeeda u sujuudayaan warbixinta markuu nebi sulaymaan u sheegay nebi sulaymaan warqad buu u dhiibay shimbirkii warqadii buu u geeyay bilqiisa qoomkii dhannaa iyo boqoradii waxay ku islaameen warqaddu shimbirkaa sulaymaan ka soo qaaday ku islaameen shimbir baa ummaddan bedilay innagana maanta mujtamaceenni iyo kana bedelayaa maanta laakiin shimbir nuuceeye buu ahaa shimbir murugle buu ahaa murugle ka urugooda xaaladaas waa kii yidhi allaa yasjuduu lilahi aladii khalaqa asamaawaati waalard soo mahay yukhruju alkhab'a fi asamaawaati waalard soo mahay miyay sujuudda ilaahay mutaystay ayay u sujuudi waayeen markaasay ilaahay keyrkii u sujuudeen oo waxaa soo arkay ayaku cadceedda u sujuudaya yasjuduuna lishamsi min duuni illah markaasuu wazayana lahum shaytaan weliba hee camalka waa camal shaydaan weeyaan maadaamuu shaydaan uu baatilka fidinayo uu bini aadamka uu jeedinaya ilaahay keyrkii inay u sujuudaan shaqadii shaydaan baa naga iyo hirgashay iyaku way fiican yihiin waa bashar fitradii baa bini aadamka ku jirta islaamiga iimaaniga ahayd laakiin maadaamuu shaydaan ku dadaalay shaydaanka u weciyo waxay caabudayaan oo ilaah moodayaan cadcaadiba u sujuudeen buu ku yidhi warqaddaa uu ka qaaday nebi sulaymaan uu u geeyay balqiisa sabab waxay u noqotay ummaddan oo waddanna ku nool in ilaahay gacantiisa ku islaamiyo shimbirkaas marka qisaska qur-aanka maxaa la noogu sheegay qur-aan ayaa quraanjooyin u damqata oo tiri yaa ayuha namlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtimannakum sulaymaanu wajunuuduhu wahum laa yashcuruun ciidan baa soo socda jeyshu sulaymaan ina arki maayaan waad yaryartiin hishida kama mayso yaa laynagu joogjoogsanayna qaladiina ku dhaqlobay tiri ereygaa ay tidhi waa raxmad bay ku sifowday way damqatay jisigeegiibay u damqatay u naxariisatay way naseexaysay naasixad bay noqoto waa u naseexaysay ummaddeydii qur-aanka ilaahay ku sheegay qisadaas waxaa halkaa aan ka fahmaynaa waa maxay yaa akhi muslim haddii adiguna dareen aad leedahay qof muslima ilaahay kaa dhigee oo diintaadan aad qaadato ka shaqayso say diintu u fidi lahayd ummadda u gaari lahayd mujtamaceenna u bedeli lahayd haddaan ka shaqayno muddo yar gudaheed waxaad arki doontaan dadka oo xagga khayrka u soo badanaya dadka sharka wadana ay noqonayaan farakuturis dadna mujtamacu markuu noo hagaaga maxaa iman doona ma taqaana ganacsatadu way noo hagaagi oo xoolahooga meel saxay ku bixinayaan ganacsatadu markay noo hagaagaan ee dhaqaalahooga meel sax ay ku bixiyaan faqiir baa muslimiinta dhexdooda laga waayi culamo rabbaaniyiina soo bixi caalimka rabbaanigu waa caalimkee waa caalim isaguna ilaahay ku xidhan dadkana ilaahay ku xidha mushqaayadiisana ilaahay ka qaata mujtamacu markuu hagaaga maxay noo soo bixi doonaa madax waxaa soo bixi doonta diinta danaynaysa dadkana danaynaysa dalkana danaynaysa saddexdaa bay danayn doonaan madaxdeennu madax naxariis badan baa iman doonta ka cumarin wa abibakarin wa cuthmaanin wa caliy madax ku shaqaynaysa ummaddaydaan u shaqaynayaa waxaan ka cunayaa ma jirto ana mushqaayadeeda ilaahay baan ka qaadanaya goormay laakiin taasi imanaysaa waa markaan khayrkeenna ku beerno weeyaan haddaan aamusno ood xaqa ka aamustid oo xaqa sheegi weydid shaytaan iyo dacwadiisaa markaa ka hormaraysa deedna dadka sharka wada ee sharka badan leh ayaa ka badanaya dadka khayrka sameeya markaas daynaan xaqa ka wada shaqayno oo diinta ilaahayna siiyey shaqadeeda aan wada kacna insha allah dhahda niyoodeeda diinta ka wada shaqayno yaa niyooda bal gacantaa taaga insha allah dhahda insha allah dhahda waan niyoonayna sooma niyoon maxaad niyootay ree masjid khaalid ya ahla maqdisho sanad kasta waa layna soo ziyaartaa waa layna soo ziyaartaa waa layna soo ziyaartaa waa layna yimaadaa waa layna yimaadaa marmar idinkuna waa inaad socotaan de sheekh cumar jazaahu allahu khayr ijtimaac walba waa ku yimaadaa isagu ilaahay ha barakay ijtimaacu naga maqnaada ma jirto
marka khayrka waan isweydaarsanayna maanta baadilka la isweydaarsanaya caalamka sida baadilku u socdaan ee hal baadilku ay u dadaalayaan dadaal ka badan waa inayna kuna xaqa aan ku bixinaa hadday madaaris tahay hadday masaajida tahay hadday bixitaanka tahay hadday diinta dadaalkayga dadkoo la ziyaarta ay tahay hadday mujtamaca oo khayr lala dhex socdo ay tahay waa inaan dadaalkeenna kulligan aan xoojinaa insha allah allah inagu anfaco allah inoo dambi dhaaf kulankeenna allah inaga aqbalo kulankeenna allah inaga aqbalo muraadadeennana allah inoo sahlo dad badan oo walaalaheen baa xanuunsan oo duca dalbayeen ayakana caafimaad sariica allaha siiyo amniga iyo iimaankana allah inoo ziyaadiyo amni iyo khayr ayaan dareensannahay inuu soo kordhaayay allah inoo ziyaadiyo waa min allahi uu ka yimid ee allah inoo kordhiyo aamin dhahada kuwa diinta iyo danta dadka iyo danta dalka daneeyana allah inaga wariyo muslimiinta meelay joogaana muwaafaqiya midnimana allaha siiyo xanuunka la sheegayana dadku hayana allaha ka qaado oo allaha ka caafiyo inta uunan hayna dabeeraha allah inaga raaciyo maalinta ijtimaacu bilaabayay dad baa nagu lahaa jabuuti ka soo baxayay war meesha corona ka jiray ha tegin dad baa igu akhriya xadiiska daacuunka meesha daacuun baa ka jiray ha gelin waxay daacuun kama jireen waa hargab jabuuti ba hargabka uu ka jiraa baa maalinta ijtimaacu bilaabmay nin axbaabta kamid a yidhi dabuurihii meelahaas dadka lagu aasayay ayaa tagnay oo war ka doonay dhimashadii ka warrama waxay dhimashadii maba jirtay oo way yaraatay khalaas wixii la ilaahay waa rafacay bay ku leeyihin markii ijtimaacu bilaabmay waxaan ilaahay dadkan ducu u aqbalay meel walba qur-aan baa lagu akrinaya dad qur-aan haysta ilaahay cillo dhigi maayo marka caafimaadka allah inoo ziyaadiyo dhallinyarada waxaan kula dardaarmaynaa insha allah istiqaamana diinta allah inagu siiyo sala allahu calaa sallam